Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dhammaan. Waxaan u taxsiinayaa walaalahayga muslimiinta ah intii ku geeriyootay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidaas oo kale bulshooyinka ku dhaawacan dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Walaalkayga muslimka ah ama walaashayda muslimada ah iyo hooyadayda Soomaaliyeed iyo aabahayga Soomaaliyeed ha murgin, ha walwalin, ha walbahaarin waxaa dhahdaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Walillahi ma a'taa wa lahu ma akhad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdaar. Allah subhanahu wa ta'ala waxa u sugan wixii isaga uu bixiyo, isaga fadligiisu ku bixiya Allah subhanahu wa ta'ala. Sidaas oo kale rabbigeena wuxuu qaatana waa isaga doonitaankiisa. Wax kastaba Allah xaggi subhanahu wa ta'ala waqti bay leeyihiin. Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaray Soomaali Allah samir iyo iimaan ha ka siiyo. Wixii kaga dhintay dhibaatadaasi Muqdisho ka dhacday, intii dhaawac ay soo gaadhay, Allah subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado. Maanta waa imtixaan Allah subhanahu wa ta'ala uu imtixaamayo. wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati وبشر الصابرين. الله ينو بشاري سبحانه وتعالى هو سمره وبشاره همرجن مانتا اوين هو الولين. الله سبحانه وتعالى وحا ويديسانيا إن قلبيغا وكبخيا فرحد عريريغا أدريميسو لحد انت أدريميسو إن الله سبحانه وتعالى قلبيغا وكسارو أيا ويديسانيا لمان هو يوين كسومالي وحنون كاسي وسو غاري. الله سبحانه وتعالى وحا ويديسانيا حنون كاينو كدلقادو لمان aabayaasha Soomaali oo xanuunkaasi uu soo gaaray. Allah subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayaa in xanuunka uu ka dulqaado dhammaan ubadka Soomaaliyeed oo waalidiintood iyo ehelkood ay ku waxyeeleeyeen qaraxaasi meesha ka dhacay. Waxaan weydiisanayaa Allah subhanahu wa ta'ala in qalbigooda uu ka saaro murugta ay dareemayaan. Qalbigeena in badan uu dareemi kara arrinta xanuunka ay leedahay. Dad waxba aan galabsan in si xaq daro ah lagu dilo oo dhiigooda meesha lagu daadayo. Dhalinyaro, waayeel iyo caruur iyo dumar ay dhici kadho waalidiin u soo shaqo tagay ubadkooda inay ku jiraan, ubad u soo tagay in aqoon ay bartaan. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed in qalbigooda uu ka saaro dhaawacaasi soo gaaray, murugta iyo ciriirigana in Allah subhanahu wa ta'ala uu ugu bedelo farxad. Run ahaantii laba gooraba way dhiman lahaayeen, xilligoodana waa soo dhammaaday, laakiin qaabkaas qaab aad u xanuun kulul ah. xaqiiqatan keligiina ma tihiin. dannahay Soomaaliyo dhan waynu dareemi karnaa xanuunka ay leedahay. murugta keligiina ma murugaysaan, keligiin ma naxsanidiin, keligiin laydinkama tegin. arrinkaasi waan idinla qabnaa, waan idinla murugta waynu idinla dareemi, xanuunka waynu idinla dareemi, walwalka aad dareemaysaan waan idinla dareemi. wamaca daalika inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah subhanahu wa ta'ala baa mudan in qalbigeena aynu ku hayno mar kastaba. Allahna subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa dhibaatooyinka maanta Soomaali haysata inuu naga dulqaado. aynu Rabbi subhanahu wa ta'ala weydiisanaynaa. waxaa muhiim ah wax kastoona soo mar haddaan nahay Soomaali in badan bay nagu soo laalaabatay, laakiin waxaa la yaab leh in badan oo kamida kuma cibro qaadanayno. goorma iman doontaa bulshooyinka Soomaali oo isjecel oo qalbigooda jacayl uu ka buuxo, bulshooyinka Soomaali oo mid ah, bulshooyinka Soomaali oo maanta waxaan baaba'shay oo qabyaaladda iyo siyaasadda talo goorma arrinka laga bixi. dhammaan bulshooyinka Soomaali waxaan ugu baaqay waxa ay tahay walaalayaal aan isjeclaano, walaalayaal aan isjeclaano, wixiina soo kala gaaray aan iska cafino, mid aynu noqono, aynu u soo wada jeesano inaan ka wada shaqeyno adduunkeena iyo aakhiradeena wixii ina anfacaya. ilaa imisaan fiirsan karnaa bulshadeena oo maalin kasta dhammaanaysa? ilaa imisaan u soo joogaynaa bulshooyinteennii oo maalin kastaba dhibaato ay soo gaari? walaalayaal dhammaan waxaan dhihi aan jeclaano walaalaheen, aynu hal noqono, aynu hal meel ka soo wada jeesano, aynu Rabbi subhanahu wa ta'ala u laabano, aynu Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa aynu qabsano iyo sunnada rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. arrinkaas lagu badbaadayaa haddii hal mid aynu noqono, aynu midoobno oo khilaafaadka iyo cuqdada iyo xiqdiga haddii aynu ka dhex baxno, aynu hal mid aynu noqono, waxa xaqiiqatan dhibaatooyinka maanta in haysta in badan oo kamida Allah subhanahu wa ta'ala uu naga dulqaadi doono.
walaalayaal aynu u noqono alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam. aynu ka dhex baxano maanta waxa inugu dhegan, aynu ka dhex baxano cuqudadaha iyo dhibaatooyinka maanta ina kala haysta. haddii hal mid aynu noqono oo hal meel aan ka soo wada jeesano oo inaga aan isjeclaano oo waxa maanta ina dhex yaal aynu ka dhex baxano xaqiiqatan waxa dhab ah dhibaatooyinkani maanta dhacaya aynu ka badbaadayno walaalayaal. ilaa imisaan ku jiri karnaa dhibaatooyinkani aan u soo joogayna bulshadeennii oo maalin kastaba dhibaato ay soo gaarayso oo maalin kastaba ciriira dareemaysa. ilaa imisaan ku jiri karnaa walaalayaal. aynu rabbi subxaanahu watacaala u laabano, alla subxaanahu watacaala u toobad keenno, aynu isjeclaano walaalayaal, aynu isjeclaano walaalayaal. 30 sano waxaan ku jirna waa dhibaatooyin, waalidiin ilmaynaya, ubad ilmaynaya, dad waaweyn oo dhibaato ay soo gaari. walaalayaal arrinkaasi xaqiiqatan aad wax looga naxaway, wax loo dulqaadan karana maaha. waxaana la gudban walaalayaal qof kastoo muslim ah in walaalkiisa uu jeclaado, in walaalkiisa uu cafiyo, in qalbigiisa uu ka saaro wuxuu u dareemayo, si aan u noqono bulsho midaysan oo isku duuban oo adduunkooda iyo aakhiradoodaba ka wada shaqaynaya. dhammaan waxaan dhihi alla qalbigiina farxad ha ka buuxiyo. murugta aad dareemaysaan Soomaaliya oo dhan baa idinla dareemaysa, keligiina maaha. alla qalbigeena ha ka wada saaro, bulsho midaysan oo isjecel oo hal meel ka soo wada jeeda, oo hal meel ku wada jeeda. alla subxaanahu watacaala ha naga dhigo dhibaatooyinka maanta ina haysta haddaan nahay Soomaali. alla subxaanahu watacaala ha naga dulqaado. alla subxaanahu watacaala qalbiga ha inoo mideeyo, bulsho isjecel, isku naxda, wax istarta. alla subxaanahu watacaala ha naga dhigo. alla subxaanahu watacaala waxa aan weydiisanayaa sanadkan cusub oo dhalan doona inuu nooga dhigo sanad cusub oo bulshaweynta Soomaaliyeed ay u noqoto sanad cusub oo u dhashay kaannamaa wuliduu min jadiid. alla subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayaa sanad barwaaqo oo ummadaasi Soomaali qalbigooda, noloshooda dhammaan ay ka wada buuxsanto farxad iyo baraaro iyo bashbash iyo barwaaqo. ummad midaysan oo hal meel ku wada socota allah inaga dhigo. waxa inagu dhex jiro xumaha ahan allah inaga dhex saaro. wajazaakumullahu khayra. sallallahu calaa nabiyina Muhammad.